Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda dhammaan waan idin salaamay. Kusoo dhawaada channelkayga Muno Home. Waa anigoo Muno ah. Halkaad naga daawanaysaanna waa Muno's Home. Maasha Allah, maanta waxaan idin wadaa sida aan u hagaajisto khamaarada ama khamaarada aan u organize gareeyo. Maasha Allah, waa qaab yar oo aad u fudud oo aan dhib badnayn. Khamaaradana maasha Allah, jajab iyo feeri waxaas dhan uma baahnid, waad ka maarmaysaa. Marka waa hab yar oo fudud oo anigana aan ka faa'iiday, idinkan aan rajeynaya inaad ka faa'iidaysataan ayaan jeclaystay inaan idinla share gareeyo. Hadda waad aragtaan khamaaradii oo dhan waan soo wada safay. Marka hadda ayaan idin tusayaa qaabka aan u sameeyay iyo sidaan u organize gareynayo insha Allah. Haddii walaal channelkeena aad ku cusub tahay, fadlan subscribe, like and share. Haddii aad ka heshaan waxaan rajeynayaa inaad la wadaagtid asxaabtaada. Fadlan walaal hana hilmaamin inaad gambaleelka aad furtid si aad u aragtid fiidiyowada aan soo dhigo. Waa kana halkan ayaan khamaarada dhan keenayaa. Miiska ayaan soo saartay. Waan bilaabeynaa marka sidaan u hagaajisto khamaarada. Fadlan daawasho wacan sii daawada video dhammaad ilaa bilaaw. Khamaaradoo dhan ayaan ku soo saartay, banaanka ayaan u soo saaray si aan u arko khamaarada aan haysto. Khamaarada anigaan isticmaalo waa shifoon ayay u badan yihiin badankooda. Kuwa kale waan isticmaalaa, mar kale ayaan idinla wadaagayaa ayagana sidaan u hagaajisto. Markaad waa kana khamaarkii geesaha labada geesood ayaan isku qabanayaa. Waxaan rabaa hal si oo isla eg inaan u sameeyo khamaarada. Marka qaar ayaa kastoo dhaadheer, qaar balaca ayay u ballaaran yihiin. Kulligood hal size ma wada aha, laakiin hal si ayaan u wada sameyn doonaa insha Allah. Markaad waa aragteen afarta qayb ayaan isku qabanaya, afarta gees ayaan isku keenay. Mar kale ayaan laabayaa. Markaan laabo ilaa mar saddexaad ayaan laabayaa. Waxaan rabaa si yaroo dhuub, waad aragtaan. Hadda waa markii labaad aan laabay. Waxaa ii haray markii saddexaad. 3 mar markaad laabtid waa kaasaa size ayaa helaysaa, saas ayuu ku soo baxayaa. Hadda saad aragtaan wax yar jajab ayaa ku jiro, laakiin jajabkaasi wuu ka bixi doonaa, wax dhibaato ma lahan. Feeri iyo waxna laygama baahno. Marka sidaan ayaan ku wadayaa khamaar walbo sidaas ayaan ka dhigayaa. Khamaaradoo dhan markaan soo wada dhameeyo waa idin tusi doonaa kulli miiskaan soo saaro siday ku soo baxeen. Khamaaradoo dhan aad arkayseen sidaani ayaan ku soo sameynayaa. Afarta geesood markaan isku qabto hal mar aan laabayaa. Mar labaad ayaan laabaa ilaa mar saddexaad. Waa kaasaa haddana waa u jeedaan kii labaad ayaan bilaabay. Waa kana haddana mar labaad ayaan isku keenay. Waan isla simaa, waad aragtaan. Haddana mar saddexaad ayaan isku keenayaa. Khamaarkii wuxuu noqonayaa dhuudhuub saad u jeedaan. Waa kaasaa. Maasha Allah, waa habka ugu fudud oo khamaarada aad ku samaysan kartid, mana kaa jajabaya. Quruxdooda way soo baxaysaa. Waxaa kaloo ani aad aan ugu helay oo iiga caawisaa oo ii sahashaa subaxii markaan degdegsanahay, markaan u rabo kala inaan meel aan aado. Khamaaradii way ii diyaarsan yihiin. Mar walba waxaan ku dhahay jajab ma jiro. Markii la soo dhaqo isla markii haddii aad toosisid, bir waxaa jirto oo loogu talagalay khamaaradoo kale in la saarto. Birtaasi hadhow ayaan idinla wadaagayaa saad u aragtaan idinkane. Maasha Allah, aad ayay u fudud yihiin. Subax walba markaad bixaysid ama markaad xafladoo kale aad aadaysid, dharkii wuu ku diyaarsan yahay, khamaarkii wuu ku diyaarsan yahay. Khamaar raaditaan kaaga baahan ma lahan. Hal bir ayaa wada gelin doonaa intaani khamaar. Birtaasi waxay leedahay 3 dabaq. Waa dabaqa koowaad, ugu hooseeya, labaad iyo saddexaad. Khamaarada marka dabaqyadaasi ayaa lagu safayaa oo la saarayaa. Quruxda maasha Allah lagama sheekeyn karo. Aad iyo aadna way u fudud tahay. Khamaar walbo aad arkaysaa. Wax qarsoomaya ma lahan. Sidaas darteed ayaan aad iyo aad uga helay birtaasi. Birtani waxaan ka soo gaday IKEA. Waad ka heli kartaan, waa lagu gadaa. Laakiin ana hadda IKEA kama soo gadin. Dukaan kale waxaan ka soo gaday la dhahayo Jysk.
Yuuska ayaa la dhahaa dukaankaas insha Allah. Marka dukaamo badan ayaa laga helayaa oo alaabta guriga iyo jiifafkii waxaas si loogu talagalahayaan. Qaybta inta badan waxaa lagu gadaa oo maxay ahayd organizationka loogu talagalay ayaa lagu gadaa. Marka maasha Allah aad iyo aad ayuu u fudud yahay. Khamaarada keliyana uma isticmaalo birtaas, dhar kale oo badan ayaa jirto oo aan u isticmaalo. Insha Allah ayagana mar kale ayaan idinla wadaagi doonaa. Idinkana hadda waxaan bilaabayaa kalarka gaduudka ayaan ka bilaabayaa. Ayu khamaar oo aan haysto oo gaduud ah ayaan safayaa. Waxaan ku xijin doonaa nude ayaan ku xijin doonaa. Saas ayaan ku wadayaa ilaa yacni kalarada dhan aan booskooda aan geliyo. Maasha Allah lagama sheekeyn karo inaba caadi maahan siday u qurxan yihiin markii khamaarada sidan loo safo oo kalarada la isku aadiyo. Hadhow waxaa kuu fududaanayso kalarkaad u baahan tahay waad helaysaa. Raaditaan badan iyo yacni maxay ahayd khamaaro ma helay iyo waad ka bixi doontaa. Marka maasha Allah asxaabta waa kana hadda sidan ayaan ku soo wadayaa ilaa khamaarada dhan aan yacni soo wada safo booskooda aan soo geliyo. Waxaan rajaynayaa inaad videogaad ka faa'iidaysateen. Haddii aad haysataan wax fikrad ah ama codsi oo aad jeclaan lahaydeen inaan idinla wadaago fadlan hoos igu soo qora. Insha Allah waan isku dayaa anigana codsiyadiina inaan idin fuliyo oo aan soo sameeyo. Marka waa kana hadda khamaaradii sidan ayaan ku wadayaa. Insha Allah sii daawada marka aan dhameeyo ayaan idin tusayaa khamaaradii siday u ekaadeen iyo siday ku soo baxeen iyo waxaan ka damacsanahay inaan sameeyo. Maasha Allah asxaabtii waa kana waan dhameeyay labadii khamaar oo ugu dambeysay ayaan dhigayaa. Saan ayay ku soo wada baxeen khamaaradii oo dhan miiska ayaan soo wada saaray waan soo wada dhameeyay. Waxaan idin tusin doonaa marka siday ku soo baxeen iyo kalarada saad u aragtaan. Waa kana asxaabta maasha Allah sidan ayay ku soo baxeen khamaaradii waan soo wada hagaajiyay. Siday yacni isku leeyihiin kalar ahaan ayaan u hagaajiyay. Waxa ay dhiman kaliya hadda waxaa waayay birta ayaan suraynaa. Maasha Allah waqti badanna kaama qaadanayso. Quruxdana lagama sheekeyn karo. Waxa kuu yaal iyo waxa kaa maqan waad arki kartaa. Khamaaradina kaama halaabayaan oo jajab ama feero maanta dhan kaama galayaan markii birta la suro. Waa kana marka asxaabta saan ayuu ku soo baxay. Saan ayaan kalarada aan u jeclahay yacni inaan isku aadiyo. Waxa ii fududaanaysa hadhow dharka aan wato iyo khamaarka aan u gashan lahay way ii sahlaysaa raaditaan badan igama qaadanayso. Waa kan asxaabta birtaan idin sheegayo oo aan khamaaradan u isticmaalo 3 dabaq ayay ka kooban tahay saad arkaysaan. Waa dabaqa koowaad iyo labaad iyo saddexaad. Khamaarada marka geedkan ayaan jeclahay inaan dharka ku hagaajisto. Marka dabaqa koowaad ayaan ka bilaabayaa khamaarada. Qaybta gaduudka ayaan ka bilaabayaa insha Allah. Saas ayaan u surayaa. Hal mar kaliya ayaan suraysaa. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican aad u aragtaan. Waxaan ku xijinayaa khamaarka kale ayaan ku xijinayaa. Wax yar waa la isdul saaraa. Mana isdul saar badan uma baahnid oo khamaaradii oo dhan inaa la qariyo lama rabo.
laakiin in qamaar walba la arki karo oo kalarada la arki karo waayo muhiimada. Marka saad ujeedaan sidan ayaan kusoo wadayaa ilaa aan ka dhameeyo qamaaradoo dhan 3 dabaq ilaa 3 dabaq aan ka buuxiyo. Sidaan ayaan kusoo wadayaa. Masha Allah, marka asxaabta waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen. Sidaan ayaan kusoo dhameyn doonaa ilaa dabaqa 3aad. Waqti badan kaama qaadanayso. Intaan iyo dhan waxaa laga yaabaa wax dhan 20 daqiiqo wax ka yar inaan ku sameeyo. Masha Allah, 20 daqiiqo wax ka yar, laakiin quruxda iyo waqtiga oo hadhow aad qamaaro ku raadin lahayd iyo kalar hebel aan raadinay iyo ma aragteen ayaa Masha Allah kuu baaqanaysa. Marka dawaa karasaan ayaan kusoo dhameynayaa. Waxaan isku soo laabanaynaa markii aan dhameeyo qamaarada. Masha Allah, asxaabta waa kana waan dhameeyay. Sidaani ayaan usoo safay. Dabaqii koowaad waa kaasaa, kii labaad Masha Allah sidaas ayaa loo arkaa qamaarada. Wax isdul saaran ama cariiri dareemaya ma lahan. Kii 3aadna waa kaasaa. Dabaqeynkan ayaan isticmaalaa oo qamaarada aan jeclahay in aan ku hagaajisto. Asxaabta insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen videogan. Haddii aad ka faa'iidaysatay fadlan walaalaha la wadaag commentiga iyo subscribe-ka iga hilmaamin, waa ii dhiirigelin iyo like-taba. Insha Allah asxaabta videoga intaan ayaan ku ekeenayaa. Inuu intaan kasii dheeraado ma rabi. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina. Aad iyo aad ayaan idinkaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ila socotaan. Insha Allah ilaa video kale aan ka kulmeyno. Khayr ayaan idin dhaafay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.